gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdulaahi ayaa shir gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisa afraad oo ajindiisu ah ansixinta xubin ka mid ah guddiga wadajirka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo arrinta labaad ee xoor-hoosaadka golaha aqalka sare. kulankan maanta oo ay soo xaadireen 30 senatar ayaa ugu horeyn lagu codeeyey senator samsam daahir maxamuud inay ka mid noqoto guddiga wadajirka ah iyo la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyadoo intaas kadib senataradu ay guda galeen dood xoor-heesaadka golaha aqalka sare ay toosin iyo sixitaan ku sameeyeen qodobadii maanta loo soo bandhigay. kulanka maanta sidoo kale ayaa warbixin looga dhageystay senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo howlo shaqo ku tagay gobolka Gedo. gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo kulankan xiray ayaa senatarada faray inay isbarbardhig ku sameeyaan qodobada xeer-hoosaadkii hore iyo isbeddelka soo kordhay maalinta sabtida ahna lasii wadi doono xeer-hoosaadka aqalka sare. dhinaca kale senator samsam daahir maxamuud ayaa ka mid noqotay xubnaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya kadib markii maanta ay golaha aqalka sare ka heshay cod kalsoonida.